hadiyad ahaan box ama sanduuq wax loogu riday muusan garanaynin asagii xaaskiisii ayaa waxay fureen hadiyaddii balse waxaa ka soo baxday halka aan ku joojiyo saxan saxa inoo haya atooshada u mahadsan tahay waxa lagu yaqaanaa aroosyada marka ay dhacaan in dadka arooskaasi ehelka la ah ama qaraabada iyo saaxiibada inay keenaan hadiyad haye mid kamid ah qof ayaa hadiyad kartoon ku jirta soo diray oo waliba lagu soo xardhay astaamihii iyo waxyaabihii lagu yaqiinay hadiyadaha haye hase yeeshee markii la furay ayaa waxa ka qarxay bambaano oo hadiyadii oo bambaano noqotay bisinka kadibna waxa ku dhintay ninkii caruuska ahaa caruusadiina waa ay ku dhaawacantay caruuska hooyadiina waa ay ku dhimatay haye ma la garanayaa marka ciidan hadiyada bambaada ku soo dhaxqarisay waa la garan waayay booliska muddo 2 bilood ayay baarayeen ilaa wax ka badan 200 oo qof ayay wareysteen hase yeeshee waxba way waayeen 2 bilood kadib ayaa qof soo diray warqad 130 eray ay ku qoran yihiin oo English ah oo luqad adag lagu soo qoray haye kuna socota taliyaha booliska deegaanka ay dhibka ka dhacay haye kadibna tahay dadka aad maraysaan oo dhan dadkii dambiga geysta ma aha waad qaldantihiin meel qaldan baad ka baaraysaan dambiga ayay warqada ay ku qoran tahay warqada laftirkeedna waa la garan waayay meesha laga soo diray hase yeeshee mar dambe ayaa la gartay ninka warqada soo diray oo ahaa nin maamulo ka ahaan jiray iskuul mid ka mid ah dadka lamaanayaasha isguursaday qaraabadooda iskuul uu dhigayay ayuu maamulo ka ahaa sidaas ayay arinta ku dhacday caruuskii uu dhintay hadiyadii bambaanada lagu soo dhaxqariyaa